السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان جنرالka Munir Marsi saaxiibada ku xiran soo dhawaada. Qof walba oo daawanaya meel walba iga daawanaysid waxaan ku leeyahay soo dhawow. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo mowduuc muhiim ah maxaa soo celceliya kufsiga. Sida title-ka ku qoran mowduucan marka hore horta waxaan aad ugu xumahay qof walba muslima oo dhibaato ku dhacda aad ugu xumaada gaar ahaan dhibaatadan soo laalaabatay ee kufsiga gabdhaha Soomaaliyeed loo geysanayo. kufsi si guud ahaan adduunyada uu ka jiraa wadamada ku kala badan yihiin laakiin sanadahan dambe bilooyinkan dambe waxaan aragnaa gabdhaha Soomaaliyeed oo la kufsanayo waxaa jirtay dhacdo maanta aad loo hadalhayo social media Soomaalida dhacdadaas oo ah gabar Soomaaliyeed oo la kufsaday kadibna dabaq laga soo tuuray oo la dilay dhacdadaas waxay ka dhacday magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada aan hadda joogo waa bari Facebook-na waa kaga hadli jiray dhacdooyinka noocan oo kala markay dhacaan walow badana aan jeclahay inaan ka gaabsado arrimahaas laakiin maanta waxaan rabaa inaan mowduucan ka hadlo gabadha qaabkii wax u dhacayna wax yar idin sheegay sida aan wax u maqlay gabadhan waxaa la soo xiriiray wiil ay asxaab ahaayeen kadib uu balamiyay kadib wiilal kale ayaa la joogeen kadibna way kufsadeen kadibna dabaq dheer ay ka soo tuureen yani dabaq dhowr biyaana ah aadan ugu xumahay way dhimatay Ilaahay u naxariisto kulay xisaabteeda maalin aan yani qof wax laga qarin karin oo Ilaahay hortiisa la jooga insha Allah cadaalad heli doonta hadaysan maanta helin gabdhaha Soomaaliyeed marka maxaan leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay gabdho walaalayaal waxa fiican markii aad qof la kulmaysid inaad kula kulanto meel bulsho ee kulay kulanka wuxuu noqon karaa kulan waxbarasho wax la isla akhrisanayo kulan shaqo marka hadii aad qof la kulmayso meel bulsho ee kula kulan qof soo wado qofka aad la kulmaysidna waa inaad waxa fiican inaad si fiican u taqaano wuxuu yahay aad taqaano maxay maanta dadka qof waji fiican kula aad ka aragtid hadhow waxa arkaysaa soo ku dhibaateenayo marka waxaan leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed qofka aad baranaysaan qofka aad la kulmaysaan qofka aad shaqada ka raadsanaysaan qofka aad leeyihiin wax noo faa'iideeyo waxbarashada wax noo akhriya aad isaga fiiriya dadka isku mid maaha qof wanaagsan oo asagana waxa jiri karo isbedelayo dhacdooyinkan kalena dhacdooyinkan kufsigan way soo laabtaan oo daraad waxaan arkaynay 2 isbuuc ka hor adii isbuuc ka hor gabar la rikaatay kadibna la kufsaday oo video laga duubay runtii aad xanuun u leedahay adoo walaasha dhibaato loo geystay oo kale waay maxay leeyahay gabadhaas muslimada ah ee walaasheen ah ee dhibaato loo geysanayo waa u jeedaan marka mar kale boqol maraan ka tacsiinaya dhamaan gabdhaha Soomaaliyeed dhibaatada gaartay aad ugu xumahay gabadha hadda walaasheen ah ee dhibta ku dhacday ee hadda cusub ee curdunka aan ayadana Ilaahay u naxariisto familkeedana sabar iimaan Allah ka siiyo marka gabdho talooyinkaasna qaataan rajayna oo aad isaga bartaan oo aad isaga fiirisaan qofka la kulmaysaan waa muuqaalka intaan soo gudbinaya insha Allah aad kadib muuqaalan soo duubi doona waa ma santiin daawashadiina soo dhawaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh